kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada channelka Gunta Wararka waa shanta bisha 10 sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxa kamid ah maxaa ka jira in Axmed Madoobe uu ku dhawaaqayo kooni isu taag iyo waqtiga xafladda caleemasaarkiisa ay dhacayso oo la shaaciyay Amison oo isurtaa ku sameysay mas'uul caan ah iyo xiisad ka dhalatay oo cirka isku sii shareeraysa Abdurrahman Cabdi Shakuur warsame oo ka digay qorshaha lis oo damacsan tahay villa Somalia Xaaf oo qaaday tallaabo ka careysiisay dawladda federaalka kuna dhawaaqay guddiga doorashooyinka iyo farsamada galmudugga Itoobiya oo heshiis halis ah la gashay kooxo hubeysan oo ka dagaalanta Somalia hub culusna u ballan qaaday iyo xilliga uu furmayo kala fadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo la shaaciyay iyo xildhibaanada oo degdeg lagu amray inay ku soo xaroodaan intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan aynu ku bilaawne maxaa ka jira in Axmed Madoobe uu ku dhawaaqayo gooni isu taaga iyo waliba waqtiga xafladda caleemasaarkiisa ay dhacayso oo la shaaciyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa sheegay in cadaadiska xoogan ee kaga imaanaya dawladda federaalka ee uusan ku qasbi doonin inay ku dhawaaqaan gooni u goosada waxaana laga raadinayo waa dawlad federaal xalban ka weynay si kalaan u tashanayna maya midnimada Soomaaliya annaga u taagan annaga keenayno annaga ka shaqeynayna cidna ugama gambanayno shacabka ayuu u soo jeediyay in laga badbaadiyo dhurwaayada amni darada sii kordhinaysa iyo qaraxyada aan u soo jeesana inaan amniga ka wada shaqeyno oo aan isku dayno waxa maanta laga hadlayo iyadoo xukuumadda hadda jirta lagu eedeynaya inay ka soo horjeedaan nidaamka federaalka Axmed Madoobe ayaa carabka ku adkeeyay ahmiyadda ay leedahay in la xoojiyo nidaamka ay dadka ku heshiiyeen deeqaha lacagta iyo qaybaha kale ayuu ku nuuxsaday in lagu koobay villa Soomaaliya markan Jubbaland ka hadlo labadii sano ee u dambeysay waxaas ay idinka soo gaaray ma jiraan haba yaraatee maamulka hawada oo dalka dib loogu soo celiyay sanado kadib ayuu tibaaxay in dawladda farmaajo ay muujisay inaan lagu haleyn karin xitaa wax ka sii weyn oo ay Soomaali leedahay waan ka tashan doonaa madaxweyne Axmed Madoobe ayaa sheegay in Jubbaland ay tusaale u tahay Soomaaliya maadaama ay degto Soomaali oo idil ayna ka mid tahay meelaha khilaafka dalka reegaadiyay ay ka bilowdeen dib u heshiisiino qoto dheer oo la sameeyay ayaa natiijada ka soo baxday waxay noqotay in bulshada ay ku heshiiyaan dhismaha maamul ka shaqeeya midnimada dalka danahooda iyo horumarkooda Axmed Maxamed Islaam oo ka hadlaya xaflad ka qabsoontay Kismaayo caasimada ku meel gaarka ee dawlad goboleedkaasi ayaa soo qaatay xaaladda guud ee dalka ay ku jirta siyaasadda iyo amniga ma noqon karayso dawladnimada Soomaaliya fikir qof ku urursan oo qof uu leeyahay aniga iri waa wax dadka ka dhaxeeya shakhsi ma oran karo shakhsigana ma keeni ayuu Axmed Madoobe ku tiraabay munaasabada wada hadal foolka fool ay la galaan dawladda federaalka ayuu albaabada u furay si loo soo afjaro kala taagdaaga jira waxaan u baahanahay inaan ka wada hadalno ku wada soconno ama ku heshiino waa dastuurka dalka u yaala ku federaal ha noqdo ama kan maamulka ha noqdo isaga waxa uu yahay waxa dadka hagi karaya hoggaanka villa Soomaaliya ayuu ku eedeeyay isku koobida talada dalka tacbiir ama fikir qof uu leeyahay waxba lagu ma sameyn karo sida laga soo xigtay Axmed Maxamed Islaam kaliya cidda ka dhex faa'iideysanaysa khilaafka siyaasadeed waa al-shabaab awoodda al-shabaab sida ay markii horeba ahayd maanta waa ay ka sii laba jibaarantay waxa keenayana waa in la dagaalamo waxa laga doorbiday in dhaqaalihii dib loogu celiyay dalka lagu burburinayo mas'uuliyiinta dawladda farmaajo ee marin habaabsan ayuu ku tartarsiiyay inay xisaabtan ay ka fikirayaan dhaxalka ay dalka uga tagayaan kaliya sanad iyo bilooyin ayaa uga haray muddada xilkooda rasmiga ah wada tashi isfahan walaalow intaasa wax lagu qaban karaaye qofna fikir gaar oo uu leeyahay waxba kuma sameyn karayo dhinaca kale Axmed Madoobe oo soo dhaweeyay madal ay ku midoobeen qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadda ee dalka ayaa si la mid ah bogaadiyay shirweyne badbaado qaran oo ay axsaabta iclaamiyeen shirkii Muqdisho lagu soo xiray Arbacadii ayuu ku sifeeyay mid marin habaabsan beesha caalamka ayuu tilmaamay inaysan wajahin waxa dhabta ah waxa lagu sii kala fogaanayna macna ma lahan cafin dagaalka al-shabaab iyo horumarinta dalka la gaarsiinayo waxa loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo oo aan kala hadalnay dawladda iyo beesha caalamka ayuu hoosta ka xariiqay hogaamiyaasha dalka ayuu ku booriyay inay ku soo laabtaan xaqiiqda ayna fahmaan meesha uu dalka ka yimid iyo halka uu u socdo
meeshii waxaasi laga hadli lahaa waxaa laga hadlayaa diyaaradaha hala xiro dadka hala go'doomiyo hooyada umusha ah dawadeeda ha loo diido waxay raadinayaan waa wax aanan marnaba qaadanayn dhinaca kalena warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in toddobaadkan gudihiisa la qaban doono munaasabada caleemasaarka madaxweynaha dib loo doortay ee maamulka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ila wareedyo xogogaal ayaa warbaahinta u sheegay in maalinta Arbacada ay ku beegan 9 bisha Oktoobar la qaban doono xafladaasi sidoo kale munaasabada oo ah mid ballaaran ayaa la sheegay inay ka qayb galayaan mas'uuliyiin sarsare oo ku jiraan madax hore xilalka uga soo qabtay dalka wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in sidoo kale xafladda caleemasaarka Axmed Madoobe ka qayb gali doono wafdi ka socda dhinaca maamulka Somaliland ammaanka magaalada Kismaayo ayaa aad loo adkeeyay iyadoo saaki ciidamada booliiska Jubbaland ay howlgalo ballaaran ka wadaan gudaha magaaladaasi 26 bishii hore ayaa lagu waday in la qabto munaasabada caleemasaarka balse waxaa ku yimid dib u dhac kadib markii dowladda federaalka ay xayiraad saartay magaalada Kismaayo lama oga hadda sida ay wax noqon doonaan iyo tallaabada xigto ay qaadi doonto dowladda dhexe oo hore u qaadacday doorashadii dib loogu doortay Axmed Madoobe dhinaca kalena Amison ayaa is-hortaag ku sameysay mas'uul caan ah iyo xiisad ka dhalatay oo cirka isku sii shareeraysa ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee Amison gaar ahaan kuwa Djibouti ayaa lagu soo waramayaa in maanta ay is-hortaag ku sameeyeen mas'uul ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ciidamada Djibouti ayaa garoonka ugaas Khaliif u diiday inuu galo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda beledweyne mudane Maxamed Ali dhagagaab gudoomiyaha ayaa doonayay inuu ka qayb galo soo dhaweyn loo sameeyay wafdi ka socda Hirshabeelle oo halkaasi tagayay dhagagaab oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamada Amison ay ula dhaqmeen si aan wanaagsaneen isla markaana uu ka xun yahay falkaasi sidoo kale waxa uu sheegay in dhacdadaasi ay wax ka weydiin doonaan taliska ciidamada Amison ee ka howlgala gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya weli ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca saraakiisha ciidamada Djibouti oo ku aadan falkaasi lagula kacay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda beledweyne geesta kalena Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa ka digay qorshaha halis oo ay damacsan tahay villa Soomaaliya siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa dowladda Soomaaliya ku eedeeyay inay baalmartay dastuurka isla markaana aysan ogoleen in la xisaabtamo waxa uu sheegay in golihii baarlamaanka ee la xisaabtami lahaa xukuumadda ay ka dhigtay kuwa aan shaqeyn oo hoos yimaada xukuumaddii ay la xisaabtami lahaayeen madaxweynaha hadduu jabiyo qodob dastuuri ah waa khiyaano qaran waa in la ogaadaa baarlamaanka ayaa laga rabaa inay la xisaabtamaan ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur baarlamaanka waxaa laga rabaa inay la xisaabtamaan xukuumadda kala hadlaysa oo marna duulista hawada ay leedahay maanan xayirin garoonka Kismaayo marnaba isla xukuumadda leedahay xayiraadii ayaan ka qaaday ayuu yiri mar kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame hadalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa yimid kadib markii dhawaan hay'adda duulista hawada ay sheegtay inuusan jirin amar lagu xayiray in diyaarado tagaan garoonka Kismaayo taa bedelkeedana wasiir ku-xigeenka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya uu sheegay maalmo kadib inay qaadeen xayiraad ay saareen magaaladaasi dhinaca kalena madaxweyne Xaaf ayaa qaaday tallaabo ka careysiisay dowladda federaalka kuna dhawaaqay guddiga doorashooyinka iyo farsamada Galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geela Xaaf ayaa lagu wadaa inuu ku dhawaaqo guddiga soo xulista xildhibaanada baarlamaanka maamulka Galmudug iyo farsamada maamulkaasi Xaaf ayaa saacadihii u dambeeyay la tashiye la yeeshay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka waxayna isku raaceen inuu magacaabo guddi ka kooban 12 xubnood ra'iisul wasaare Kheyre ayaa dhawaan sheegay in hanaanka geedi socodka Galmudug uu la wareegay madaxweyne Axmed Ducaale Geela Xaaf maamulka Galmudug ayaa wajahaya khilaaf maalmihii ugu dambeeyay kadib markii madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geela Xaaf uu si rasmi ah uga laabtay tallaabadii ugu wakiishay howlaha maamulka Galmudug wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya dowladda Itoobiya ayaa heshiis halis ah la gashay kooxo hubeysan oo ka dagaalama Soomaaliya hub culusna u ballan qaaday dowladda Itoobiya ayaa heshiis dhanka ciidanka la gashay xoogag hubeysan oo ka dagaalamaya deegaano ka tirsan gobolada Koonfur Galbeed iyo bartamaha Soomaaliya Mustafa Ali Aadan hogaamiyaha maleeshiyaadka Westland ee ka dagaalama gobolka Hiiraan ee Koonfurta Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Itoobiya ay ballan qaaday inay ka taageeri doonto dhanka hubka isagoo la hadlay warbaahinta magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay inay la kulmeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Itoobiya isla markaana ay si dhow uga wada hadleen arinta taageerada maleeshiyaadkooda maleeshiyada Westland ee ka dagaalama gobolka Hiiraan ayaa dagaal kula jira ciidamada Al-Shabaab waxaana ay sheegeen inay yihiin maamul ka madax bannaan Hirshabeelle
ugu dambeyntiina xilliga uu furmaya kala fadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la shaaciyay iyadoo dhanka kalena xildhibaanada degdeg loogu yeeray inay ku soo galaan magaalada Muqdisho. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa degdeg isugu yeeray xildhibaanada si ay uga qayb galaan furitaanka kala fadhiga lixaad ee golaha shacabka. qoraal ka soo baxay xafiiska gudoomiye Maxamed Mursal ayaa lagu sheegay in kala fadhiga lixaad ee baarlamaanka uu furmi doono 9 bishan Oktoobar oo ku beegan maalinta Arbacada. xildhibaanada baarlamaanka ayaa la faray inay ugu dambeyn dalka ku soo galaan 7 Oktoobar ee ku beegan maalinta Isniinta. kala fadhiga shanaad ee baarlamaanka ayaa bishii 7aad ee sanadkan la xiray iyadoo muddo 2 bil ah la fasaxay intii lagu guda jiray ciidii iyo xajka. arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo maalinta Arbacada ee soo socota uu dhacayo xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelkan waa naga inta. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar channelkan sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararkaynu halkan soo gelino. waana mahadsan.